halkan waxaan rabaa maanta inaan kaga hadlo dhacdo yar oo kooban oo xalay aan la kulmay magaalada Ankara. dhacdadaasi waxay tahay xaafad ka mid ah xaafadaha dariskayga ah magaaladan ka deganahay Ankara. waxaa dhacday in xalay dhalinyaro badan ay isugu yimaadeen oo Soomaaliyeed oo maaragtay asxaaba. dhalinyaradaasi runtii markii ay xaafadda isugu yimaadeen waxay sameeyeen buuq aad u badan. way sameecaday shiteen haddii buu leeyahay buuq badan bay sameeyeen. kadibna guud ahaan bildamka xaafadda oo dhan banaanka ay isugu soo baxeen iyagoo runtii buuqaas iyo qayladaas xataa daaqadaha ay fureen. kadibna waxaa yimi in meeshii boolis dhalinyartii loo dalbo oo maaragtay isqabsi badan u yimaado oo xataa intii ummadda ahayd ama bildamka dhan xaafadda dadkii deganaayoo dhan ay ku dacwiyeen in dhalinyarada Soomaaliyeed maaragtay ay ka seexan waayeen. run ahaantii nasiib darro ayay inoo tahay iyadoo sharciyadeennii badi dad badan oo Soomaaliyeed la siiyey rejecti ama in loo cusboonayo loo diiday. haddana in inagoo dhalinyaro Soomaaliyeed ah ama dadka Soomaaliyeed waddankan ku nool aynu runtii aynan kuwa baraarugsanayn asbaabaha ama sababaha keenaya in sharcigii laynoo diido adayg badan oo markii hore aan inagu dhici jirin uu inagu dhaco. tusaale ahaan waxaad xasuusataa xilligii hore ama 1920 ilaa 21 bilowgiisii hal qof oo Soomaaliya boolisku ma istaajin jirin. haddaad bilaa ciqaamad tahay iyo haddaad wadato dadka kale ajaanibkaana waa la qabanayay kadibna sharcigooda ayaa la eegayay. taas waxay ahayd ixtiraam uu dalkani inoo muujinayo iyo in maaragtay aan nahay dad lagu tixgelinayo maalgashiga dalkan aan maalgashanay. hadday guryaha tahay, hadday tahay waxbarashada, hadday caafimaadka tahay, hadday ganacsiga tahay, hadday taksiyada ay raacana tahay iyo wax allaale wixii aan waddanka soo gelinayna dhaqaalaha iyadoo laynoo ku tixgelinayo ayay ahayd. iyo calaaqaadka dowladaha xagga sare maaragtay madaxda sare ka dhexeeya ama heshiisyada sare madaxda heshiisyada labada waddan u yaalla. taas markaas markii ay badatay cabashadii haddii ay guryaha tahay iyo bildamyada oo runtii ay Soomaalidu dad lama odhan karo Soomaalidu way wada qaylisaa oo dad wada xun maaha. laakiin waxaa jira dad badan oo dhalinyaro ah oo guryaha habeenkii isugu yimaada oo buuq badan runtii sameeya. kambaleelada xataa guryaha kale oo aysan deganeyn iyagu ama saaxiibkayga kale gurigayga markaa idhaahdo gurigaygu waa halkaas ama maalin ka mid a u arkay wuu soo ordayaa kambaleelka ayuu taabanayaa guri aan maaragtay kiisa ahayn. marka waxay u baahan tahay markaa midkii kale guri dad hurda oo saaka jarmaaday oo shaqo tegey oo nolol maalmeed raadsaday 5tii galabnimo soo laabtay isagoo raayaxa markuu gurigiisa ku soo laabtay haddana uu seexday aroortiina 5ta kale uu jarmaadayo adiga oo 5tii soo kacay galabnimo inaad habeenkii oo dhan soo jeedo oo ku qayliso oo kambaleel ku taabato waxyaalaha waddankan mamnuuca ka ah bay ka mid tahay. waxyaalaha kale mamnuuca ka mid ah waxaa weeye basaska oo kale marka la raacayo iyaduna waa la mid oo basaska oo kale laguma sheekeeyo in waddankan la ixtiraamo aad iyo aad bay u mudan tahay. waddan Soomaaliya meel kastoo joogtana waxaan leeyahay isku duubnaada.